وفيرسو نبي الله يوسف ولا ظلمية مركزوا أضون نقضي مركزها لسيد ظلمية مركزوا حبسي قال كوي حبسي كل دايبا استجوا باهضي واحد هذا الرياضي بقر كالا الرباين لفسره مو أورنين ما أنت حبسي يقول دايبا ولي ما رجع إليه وحنا فسر ورنا قتك هذا هو أورن له إذا دون نسك كاحد لو حبسي كوجا هستو وهذا ونقول هذا واحد تربان مكادورنا يد الدولة يد السيدي أو بدبادي لهيد نوشة سو واحد أورن له إذا بتوضب السنة هذا بضع سنين بوحدنا نبي الله يوسف هدنا مركي لو يمي وحشاقي شن يتبانك سنة صوص عدن نقالها ودن كاسيدي لو بدبادين لها يوم داسي ونولان كاري لها يو قالا أبو حتي شابيني بل إن نلشوا دا لغود دالو ودين لو شاقو وساس لو شاقو مؤمن وآل ياسين إلهي محوكا ورميا صدح رسول من الله دري ولا سود ديدي ونن مسلم داعي مغلصو عرري ويمي ننكا حلقو قاضي وفيرسو أدو هدي صدح رسول لديده ما يستير لهاي صح الله الرسول شي بالله أقبلي ويا أنا محاكا دوني أو هبل يا أو هبل بابا دتكو دقيسان ويا أنا محان شيقيا مايا قفل بحلقو سيسي وساني إيادو صدح رسول لديده بو يمي isagoo le war hooyo rususha raac tanbaa isaga uu ah dacwadiis waa rususha raaca cidaan waxba idinka ramin raaca way diideen bal ee way dileen siday culimmadu tilmaamayeen way dileen dabeetana ilaahay baa u naxariistay oo nicmaa la geliyey aakhiro markuu u kacay ayuu weli dadkii khayrka la jecel yahay oo muxuu leeyahay هاي القرآن هو كتلمامية سقوا سي هذا يوم ها آيات تلماميس هو شيء يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني الله جعلان لها يقول يني تلكي وقادان سيدا إلهي قدام بدافي أو يكرمي يعني أنا هاي إسلامان وإلهي كرامي isagoo dhintay buu wali dadka khayrka la jecel yahay idan waxa dacwada dadku ay u akhrinayaan waa maxay xubb الناس للخير ama xubb الخير للناس dadka oo ay khayrka la jecel yihiin dacwada naajixa waxa lagu yaqaan markaasi in loo sabro oo loo dhabar adaygo oo aan marnaba la quusanin ya ayuha alladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun ya ayuha alladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة نصوص تأصل لما واحد المامسة إن الله صبره أنت بدن بني آدم كوا إنك قراد له وحش عليه وحا السمايو نتيجة دينو مركب أركو لكن دونيدان إلهي بامامولا وقت جوح كستا وقرشية وقدرينا ويدعيا adigun baa degdeg kugu jira inta dadka diinta ugu yeedho waxa laga yaabaa inay waxba aqbali waayaan laakiin waxa suurtagal ah midhuhu goortay soo baxayaan adigu garan maysid mid yaroo adigu aad yeesaysay aan kulaba buurayn oo aad quraanka u dhigtay oo wax u sheegto iska caruuraha aanad u fiirsan inay noqoto ilaahay gacanteeda ku dunida ku badbaadiyo saalayaal basiitaan idin siinaya shaafici سويمك إمام وين أو مسلم أو دم يقانو أو دين لقى برتو أو مذهب دانو علماء هاي ستماه ما هم ملاين إنسان كي قرآن كأولي جايين ويسلها شافع بن غضانا سيرا يرى الله خير يوم قرآن كأولي جايين بواركي يعني المعرفة قرآن أولي جايين بواركي معلن كي دين تأوبري وحلاقي بين تودب بداني مركي وحولي جايين إلا نم بسيل مركع ما هيني وحيواركيين قف يرى مسلم أي وحبريان لكن waxa laga yaabaa aakhiro inuu uga faa'iido bato dad badan oo kale ay wax u dhigeen oo aan midho ka tagin kaasi midhihii uu dhalay waxa laga yaabaa kaad maanta wax bartay isagoo aan wax badan soo saarin kuu sii baro kiisa shanaad inuu dunida bedelo adigu ka shanaad siduu u ekaanaya miyaad garanaysaa miyaad soo odhanaysaa war dadaal ka shanaad baa dunida bedeli doonee
haddaad sii garanayso inuu ka shanaad ama ka lixaad ama ka tobnaad yahay ka dunida beddelaya maanta xoog baad ugu xidhxidhan lahayd ka yaraad wuxu dhigayso waxaad sodhan lahayd ha ka habsaamin waa ninkii maxay dunida ilaahay gacantiisa ku beddeli lahay marka adigu garan maysid sidaa awgeed qofka muslimka ee daaciga ahi waa inuu sabraa natiijadana waa inuu ilaahay u daayaa ilaahay baad ka rajaynaysaa inuu waxaan midho ka dhaliyo aada waddo goortu ka dhalan doontana ilaahay baa og sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahy waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluh wاlmu'minuun wasaturadduuna ilaa caalimi اlgaybi waاshahaadati fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun war camal sameeya baa la yidhi alle iyo rasuulkiisa iyo dadka mu'minka arki doona waxaa samaysaan waxaanad ogsoonaataa una ilaahay baa lagu soo celin doonaa rabbaana kaaga warrami doona wixii aada samayseen ayuha alaxiba warka badani wuu ismasaxaa dadkuna maskaxdoodu intay soo jeedaa ma dheera ma badna dii war badan lagu akhriyo inta badan wixii uu qofku sheegayo uma ismasaxaa lakiin waxaan kusoo koobayaa dacwa markay tahay oo ah in diin la faafiyo qur-aanka iyo xadiidkuba waxay inoo tilmaamayaa mu'minka xil saaran inay tahy mu'minkuna lab iyo dhadig iyo caalim weyn iyo mid in yar garanaya ma kala leh mid walba intuu garanayaa saaran mid waliba diintan wuu faafin karaa qof qurana lama sugo saxaabadu hadday nebiga qura sugayaan ma u malaynaysaa diintu inay intay gaadhi lahay maya nin waliba isagaa isxilqaamay nebigu abubakar ba wuxuu sheegay abubakar markuu wax fahmay casharati almubashiriin inta u badan isagaa keenay isagaa isna diinta u sheegay oo nebiga u keenay isma odhan nebigu dadka haw sheegay de adigu nebiga iska daba socow nebigaa sheegi doone laakiin isagaa intuu baxay usoo sheegay oo dabeetana saasay ku yimaadeen oo diinta ku garteen waxaan uga dan leeyahay qof waliba diintan wuu faafin karaa qof wal oo muslimaba diinta wuu faafin karaa kelmaddiisu ku faafin karaa dhaqankiisu ku faafin karaa xoolihiisu ku faafin karaa waktigiisu ku faafin karaa saaxiibtinimadiisu ku faafin karaa asaaliibu dacwa ma aha uun intaad meel fadhiisato in dad laguu soo ururiyo aada muxaadaro u jeediso ama intaad meel fadhiisato inaad kitaab dhigto intaas ma aha dacwadu intaas waa in yaroo ka mid a ee dacwadu waa in diintan la qaado oo dadka la gaadhsiiyo sida dadka loo gaadhsiinayaana waa si aada u tiro badan wasaaishu aad bay u tiro badantay wax kastana way yeelan kartaa marka warkan waxaan kusoo koobayaa mafhuumkan qaldan ee ah anigu kitaab ma akhriyo ama anigu ma muxaadarayn karo dee maxaan markaa diin dad gaadhsiin karaa kaas iska tuura xil isa saar oo garo qof xil saaray oo ilaahay saaray inaad tahay ilaahayna inaad la dhaqmayso o aada ajar ka rabtid idan dadka diinta waad gaadhsiin kartaa kuwa dashaad gaadhsiin kartaa kuwa tolka iyo qaraabada lataad gaadhsiin kartaa kuwa jaarka guriga kugu abaad gaadhsiin kartaa kuwa iskuulka iyo jaamacadda ku zumalada tiin baad gaadhsiin kartaa kuwa shaqada a wadaagtaan baad gaadhsiin kartaa bini aadamku si badan oo kala gedisan buu xidhiidh u leeyahy oo wax isugu tallaabin karaa dhaqankaaga iyo hantidaada iyo caqligaaga iyo waktigaaga diintaada wax ka sii sala allahu calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin